xildhibaan baar Siciid Faarax oo ka tirsan golaha wakiilada Somaliland ayaa bulshada reer Ceergaabo u qabatay kulan lagaga doodayo sidii xeer xakameeyo loogu sameyn lahaa dadka kufsiga geysta. xeerkan la doonayo in lagu xakameeyo dadka kufsiga ku kaca oo horyaala golaha wakiilada Somaliland ayaa dood ku saabsan lagu qabtay xarunta golaha wakiilada gobolka Sanaag waxaana ka soo qayb galay maayirka degmada Ceergaabo xildhibaano mas'uuliyiinta saddexda xisbi ee gobolka Sanaag culimowdiin madax dhaqameed dhalinyaro iyo haween waxaana kulankani ugu horeynba furay maayirka degmada Ceergaabo Ismaaciil Xaaji Nuur oo si adag uga hadlay dadka ku kaca kufsiga haweenka. maanta sida weyn ku inoo sheegay waxay nala joogtaa xubin ka tirsan golaha wakiilada Jamhuuriyadda Somaliland oo Baar Xaaji Siciid oo inoo ku timi booqasho una socota hawl la xiriirta kufsiga hablaha ama dumarka iyo shariicada islaamka ayna ogolayn wixii ayna ku soo batay oo iminka aad looga qaylinayo dalka oo dhan meel kastaba ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu dadkeena sakhiro oo arintaasi ilaahayna ka baabiyo bilaa ka baryaynaa. xildhibaan baar Siciid Faarax ayaa u sharaxday ka soo qaybgalayaashii xeerkan golaha wakiilada horyaala ee ku aadan kufsiga loo geysto haweenka. walaalayaal waxaan rabnaa maanta arrinka inaynu wax iska weydiino oo horta iminka xeerkani golaha iyagu yaal golaha iyaga laftiisa qaar baa ka horiyimo waxay yiraahdeen kufsiba ma jireen naga daya bahalka maalinta ilaahayeen kufsiga ma jiro habeenkii kuwa la kufsaday kuwa Hargeysa lagu kufsaday habeennimadii isla habeennimadii kufsigu wuu jiraa laakiin dulmiguna ma wanaagsana rag iyo dumar toona in lagu xadgudbo ma wanaagsana dad muslimiin baynu nahay ama xeer aan qaadano ama shariicad aan qaadano maxay tahay midkaynu rabnayno ku dabaqi karaa xeerkuna mid aan shariicada maxay ahayd ku dabaqnayni ma jiro xeer kasta oo maxay ahayd dalkan lagu dhaqayo dastuurka dalka ha ahaado ama xeerarka ha ahaado mid waliba diinta islaamka ayaa lagu dabaqaa xaqiiqdii ma jiro mid ka madax banaani. sidoo kalena waxa kulankani ka hadlay xubno isugu jira culimowdiin madax dhaqameed haween dhalinyaro iyo xubno kale oo metelayay booliiska iyo dambi baarista gobolka Sanaag. runtii marka la eego waa shay muhiim ah in la dagaalamo oo cid kasta ay ka dagaalanto cid kastana xilkaas waa saanaya culimo wax karad maamul waxaan anigu oran lahaa arintaas in marka hore beeskeeda laga soo dhiso marka laga hadlayo ama wax laga qabanayo qoys guri aanay sameyn marxaatigii furin wixii ay aragtay aanay sheegin wax alla wax cadaanaya booliska u cadaanaya ma jiro boolisku goobta ma joogin kufsigu ka dhacayo ma joogin boolisku goobta kufsigu ka dhacay baaritaan buu ka yahay laakiin marka wuxuu yimaadaan xaqiiqada cidda uu ka heli karaa waa bulshada waxa laga hadlayo kufsiga madax dhaqameedka la eedaynaya wuxuu ku gabagabeeyay in sharciga la hortaago inaan laga daba iman oo sharciga la hortaago oo ciqaabkiisa la mariyo baa lagu ballansanaa hadda saameynta uu qofka u geysan karo ama inanta u geysan karo waxaan wuxuu geysan karaa mid nafeed mid maskaxeed iyo mid caafimaad inantii maskax ahaan ma dhexgeli karto bulshadii mana raaci karto qaadata bulshada oo aan waxa soo ay sameynayaan aanay baqayn laba xaalaan oo sababa inaanay dawladda ka baqayn iyo inaanay waalidkood ka baqayn labada arrimood ayaa waxay sababayaan in kufsi wadareed dhaco kaliya oo xal lagu gaari karaa ma aha la isu guuriyo ma aha xogaa ariga laga qaato ma aha aan macaamil kale ka yeelano midna xal lagu gaari karo laakiin ninanka ama karbaasho soo baxa ama dhagax u soo baxo waxaan aaminsanahay inay laba fayskale ku dhamaan lahayn laamaynu nahay hadaynu dad islaam nahayna wax weydiintu in waxayna faras weynaynu raacnaa kufsigu waxaynu aragnay mucjiso inay tahay aafa in haysatan ay tahay haweenka hadaanu nahay anaga dhib badan buu nagu haya waxaanu anagu leenahay shariicada islaamka hala raaco. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar telefishinka caalamiga Star TV magaalada Ceergaabo.